السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channel كيغا وعمونا كورنر maanta waxaa idiin wadaa mowduuc aad muhiim u ah wuxuu yahay mowduuca maanta insha Allah aan ka hadli doono waa waqtiga sidaa uga faa'iideysan lahayd oo u dhaqaaleysan lahayd Ilaahay wuxuuna siiyay 24 saacadood 1440 daqiiqo maalin walba si aan uga faa'iideysano oo wax ku qabsano haddii uu qofku dhaho $1440 baa ku siin hayaa maalin walba sidaa rabtid u isticmaal aday ku jirtaa ama cunto ku gado ama dhar ku gado sidaa rabtid adiga u isticmaal laakiin maxaa shardi ah lacag inaysan kaa soo harin maalintaas wixii lacag kaa soo harana waa lacag kaa gubatay oo kaa dhuntay maxaad qaban lahayd waad ku dadaali lahayd inaysan lacag kaa guban oo lacag aysan kaa dhumin oo maxaa heedo lacagtaas aad ku isticmaashid sidii ugu habbooneed bal haddaba waqtigu waa sidaas waqtigii kaa dhumo maalintii waqti kuu soo laabanaya ma aha waa waqti kaa dhumay cimrigaaga waqtigii ka tegay wax kuu soo laabanaya ma aha lacag hadday kaa dhunto waad soo shaqayn kartaa waad soo celin kartaa laakiin waqtigii hadduu kaa dhumo waa wax kaa tegay kuuma soo laabanayo marka waqtigaaga yuu kaa dhumin ka faa'iidayso waqtigaaga wadaagaya insha Allah shan qodob ama shan caado aad haddaa maxaad ku falankeeda qabatiin insha Allah aad ku maxaahado ku guuleysan doontiin sida waqtiga aad uga faa'iideysatiin waqtigiina ku dhaqaaleysatiin arinta ugu horeysa waxaa waaye planning ama takhdiid planning-ka ama takhdiidka waxaa waaye qofku inuu ogaado waqtigiisa wuxuu ku qabsan lahaa ama wuxuu maxaahado ku samaysan lahaa مثلا تصال أهان هدا صبحي هذا عاد توقعه وحال ربع إن أوقاتي واحد قبسن لهاد هدو إلهي النبضي عافمات كوسوك يعني مالنتاس وحال ربع قفك إنه أوقاده مالنتاس وحو قبسن لها وحو هولها وسميسن لها ميلوه آذي لها مركز أرنتاس وحاكوت سمين كرتا كلية انت استاحن كهر عاد 5 دقيقة قده هذا عادكو محاد قران كرتا ورقد يقلن waxaad rabtid inaad qabsatid bari ama hawlaha guriga ahaatay cuntadaad karin lahayd ilmaha waxaad u soo qaban lahayd adeeg hadaad doonan lahayd hadaad tahay dadka maxay ahayd oo jecleen warqad qalin ama to do list-ga sameeyo maskaxdaada ku soo xaadirin kartaa laakiin inkastoo ay ka fiican tahay qofka inuu maxay ahayd warqad qalin ku qorto wuxuu rabo inuu sameeyo maalinta markuu indhaha soo kala qaado haduu Ilaahay caafimaad iyo khayr ku soo kiciyo waxaa la dhahaa ماهي في إنجليزي أو محا هذا وحيلة هاي every minute you spend planning saves you 10 minutes of execution halka daqiiqo aad maxaa hada planning ama maxaa takhdiidka aad sameynaysid waxay ku dhaqaaleynaysaa 10 daqiiqo oo maxaa hada qabashada arinta marka hadaad markii horeba maxaa hada takhdiid soo sameysay ama maxaad waxaad qabsan lahayd soo diyaarsatay subaxii markaas soo kacdid dhibkugu ma ahaanayso maxaad waxaad qabsan lahayd ma raadinaysid maxaa sameyn doonaa maxaa ka bixi doonaa xataa cuntada kariskeeda dad waxaa jira maxaad cuntadooda habeenkii sii diyaarsada wixii la karin lahaa dad waxaa jira maxaad habeenkii ilmaha dharkooda sii diyaariya dharka shaqada ama dharka maxaad iskoolka waxaas oo dhan waqtigaaga bay ku dhaqaaleynayaan waqti dhumisna maxaad intaad maxaad iska daba wareegi lahayd kan raadi kan maxaad samee way ka celinayaan arinta labaad waxaa waaye subaxii waxaad qabsan lahayd waxyaabaha ugu muhiimsan labada saacadood oo subaxii ugu horeysa markaad soo kacdid qabso rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu u duceeyay dadka oo maxaahada aroorihii maxaahada wax qabsada buurika li ummati fi bukuriha marka culimadan waxay arkeen labada saacadood oo ugu horeysa qofka uu soo kaco markaas uu maskaxdiisa aad u degan tahay focus iyo maxaahada tarkiis badan bay leedahay marka hawlaha ugu culus hawlaha ugu muhiimsan subaxii hore qabso aroortii hore maxaa jira markaa qabsatid habeen maxaad gelinka dambe waxaa imaan kara waqti aad mashquuli kartid ama wax maxaad ku soo bixi karo laakiin aroortii hore dad mashquul badan ma jiro wax maxaad adduunku way u degan yahay marka hawlahaaga ugu muhiimsan subaxii hore qabso arinta saddexaad waxaa waaye wax waliba waqtiga ku habboon si hana ka naaqusinin hana ku saa'idinin hal saac hadaa isdhahdid tusaale ahaan hal saac gudaheeda aad dharkan dhaqistiisa ku dhamaynaya waad ku dhamayn kartaa
halka saac gudaheeda aa falinkeeda ku qabanaysaa, ku talagelaysaa inta ugu talagashay inaad ku dhamaysid. laakiin haddaad dhahdid maanta dharkaa dhaqaaya, maanta dharkaa dhaqaaya, maanta oo dhan dharkaa dhaqaa, waxaa yeelaysaa maanta oo dhan waxaad qabanaysid oo dhan dharkii unbaad dhaqaysaa. maxaa jira dhe waxaad ugu talagashay maanta oo dhan inaad dharka dhaqdid. marka qofkay ku xiran tahay, haddaad dhahdid halkan saac gudaheeda dharka ku dhamaynaya waad ku dhamayn karaysaa. laakiin haddaad dhahdid intaasoo saacaad siinaya dhar dhaqis keligeeda, waa intaad ugu talagashay. marka waxaa waay qaynuun waay, halka saac waxaa ku dhamayn kartid 2 saac 3 saac waa ku dhamayn karaysaa. maxaa jira dhe qofka caqliga bini'aadanka maxeeda ku programsan inaa waqtigaas intaas maxeeda hawshaas aan ku qabanayo. marka haddaa adiga maxeeda wax walbaba waqtigiisa ku habboonaa siisid, waqti kaama dhumaayo. arrinta saddexaad waxaa waaye waxyaabaha waqtiga kaa dhuminaya ka taxadar ama ka digtoono. waxyaaba waxaa jira oo bini'aadanka waqtiga ka dhumiyo. marka waxyaabahaas waxaa kamid ah social mediaha iyo maxaaheeda telefoonka iyo tv-ga. badanaa hadda tv dadka ma fiirsadaan, waxaa ugu daran waa social media. waxaad isleedahay mobilkaaga soo qabo message kuu soo dhacay whatsapp kaliya u jawaab qof, waad gelaysaa whatsappkii, waxaa fiirsanaysaa status, intaad gelaysaa intaa fiirsanaysaa meeshii laga rabay 5 daqiiqo kaliya inaad maxaaheedo message kaliya maxaada u jawaabtid qof, waxaad arkaysaa adigoo 1 saac 2 saac mobilkii ku dhagan. marka horeba waxaad yeeshaa mobilkaaga haddaa hawl rabtid inaad qabsatid wifi-ga ka dami, silent saar, meel iska dhig, hawshaada markaad dhamaysatid kadib qabso mobilkaaga. maxaa jira dhe hal mar haddaa gacanta kuu galo waxaad ka baxaysaa social media, waxaad ka baxaysaa Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, maxaaheed WhatsApp, adigoo maxaad waqtiga kaa dhumay unbaad arkaysaa. arrinta shanaad waxaa waaye markaad rabtid inaad wax samaysid, hal wax waqtigaaga sii. 10 waxyaabood ha isku qaban, 10 shaqo hal mar ha dhihin waa hal mar isku qabanaya. ha dhihin hal cunugaana wax u akhrinaya, tana madaxa u shalaynaya, cunugtaana madaxa u shalaynaya, tv-ga maxaad wax ka daawanaya, telefoon baa ku hadlaya. 10 shaqo la iskuma qabta hal mar. carabta waxay dhahaan saaxib baaleen kadaab. يعني إلهي القرآن كيسكو لها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. marka wax walba markaad samaynaysid hal wax kaliya qabo, dhamay shaqadaada iyo maxaaheeda focuskaaga halkaas wax si markaad dhamaysid oo xaqiisa wax walba xaqiisa la siiya. marka waxaas dhamaysid kadib shaqada kale ama hawsha kale arrinta kale aad samayn lahayd markaas u gudub. laakiin hadhiin hal intaasoo wax hal mar isku qabanaya. asxaabta waxaa jeclahay inaad ka hesheen fiideoga maanta insha Allah. like iyo share iyo subscribe ha iga ilaabina, asxaabtiina la wadaaga. qodobadan qodobo aad u muhiim ah, dad badan ka faa'iidi kara. marka asxaabtaada iyo familkaaga iyo dadka aad jeceshahay la wadaag. sidoo kale gambaleelka taabo marka wax cusub ama fiideo cusub soo dhigo aad oga warheshiin. khayr baa idin rajaynaa meel walba aad joogtiin. bye bye.